بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أردي kusoo dhawaada kulliyadda caafimaadka ee Rift Valley Medical College waa kooraskeenii Epidemiology and Biostatistics. Waxaynu bilaabaynaa maanta Chapter 8. Waxaynu ku jirnaa module-kii saddexaad ama toddobaadkii saddexaad. Chapter-keenu maanta wuxuu ka hadli doonaa methods of data collection, organization and presentation. hababka la raaco marka daatada ama xogta lagu sameynayo collectionka, marka la organize gareynayo la habaynayo xogta, and presentation iyo marka xogta lasoo bandhigayo. Lesson numberku waa lesson number 8 oo lecture iyo chapterku isleeyihiin mar walba. waxaa la socodsiin anigo Cabdiqaadir Cabdilaahi Cali. learning objectiveskeena ama contentka chapterku ka kooban yahay. markuu chapterkan dhamaado sidii horeba caadadiinu ahayd, chapter kasta markuu dhamaado waxyaabaha la doonaya ardaygu inuu fahmo. At the end of this chapterkan ama lecturekan markuu dhamaado, the students will be able to, ardaydu inay awood u yeeshaan ko identify inay aqoonsadaan the different methods, hababka kala duwan of data collection ee xogta loo soo ururinayo, organization loo habaynayo, and presentation loola soo bandhigayo. ardaygu waa inuu familiar ku noqdaa. sidoo kale ardayga understand waa inuu fahmaa the criterion for the selection, habka iyo nidaamka lagu dooranayo of a method, habka to organize si loo habeeyo, and present loola soo bandhigo data xogta. marka habka ku habboon xogtaada qaabkaad u dooranayso. qodobka labaad aynu ku barayno waa identify, in ardayga aqoonsado different methods, hababka kala duwan of data collection ee xogta loogu soo ururinayo, and criterion iyo habka that we use aynu isticmaalayno loo isticmaalayo to select si loo doorto a method of data collection. marka different methodskaas iyo qaabkaad u isticmaalayso iyo sidaad ugu xulinayso data collectionka ayuu kana ka hadlay. kaasina wuxuu ka hadlayay data presentationka iyo organizationkana wuxuu ka hadlaya data collectionka qaabkaad ugu xulinayso. sidoo kale waxaynu ka arki doonaa inaynu define gareyno questionnaire-ku maxaa uu yahay. sidoo kale identify inaynu aqoonsan the different parts, qeybaha kala duwan of questionnaire-ku uu ka kooban yahay. indicate inaynu muujino ama caddeyno the procedures, hababka iyo qaababka to prepare si loo diyaariyo a questionnaire si loo diyaarin lahaa. introductionka sida caadiga statisticska markaynu bilaabayna waxaan soo dhiganay statisticsku inuu yahay laan ama qeyb kamid ah mathematicska iyo xisaabta u khuseysa collectionka datada, organizationka datada, summarizationka datada, analyzingka, presentationka, interpretationka. waxyaabahaasaan kusoo dhiganay recordingka datada, xogta in la kaydiyo. marka maadaama aan soo dhiganay waxa ugu horreyn jiray mar walba wuxuu ahaa marka ugu horeyso la qabanaya wuxuu ahaa collection, data collection, in xogtii lasoo ururiyo. marka xogta lasoo mar walba waa data collectionka method baa loo isticmaalaya. methodka loo isticmaalaya mar walba wuxuu ku xidhnaanayaa datadaadu noocay u egta. datadaadu ma quantitative ba, ma wax tiro iyo numerical ku saleysan ba, ma wax qualitative ah datadaadu. sidoo kale variable-kaaga ku xidhan tahay. marka nidaamka iyo nooca collectionkaad sameynaysa mar walba waxay ku xidhan tahay variable-kaaga iyo datadaadu say tahay. marka waxaynu isla fahmeen halka inay tahay first step oo statistical datada marka la doonayo in la hawlgeliyo ama laga shaqeeyo. first stepka ugu horey la qabanayo waa maxay? waa data collection. marka before any statistical work, ka hor inta aan xog xisaabeed can be done la qaban, data must be collected, waa in xogta lasoo ururiya. intaan statistical application la sameyn oo aan la hawlgelin statisticska, waa in marka koowaad ba xogta lasoo ururiya. depending on iyadoo ku xidhan the type of variable, nooca variable-kaaga ma qualitative ba, ma quantitative ba, and the objective of the study, iyo objective-ka study-gaaga uu ku tiirsan yahay ama ku saleysan yahay. objective-kii nidhi waxaa la kala jebinayaa variableskaga. marka lasii kala jebiyo ayaa objectives loosii kala qaybinaya. waxay ka dhigan tahay variable-kaaga dv-ga ama iv-ga marka la jebiyo
deetana la isku xidho aniga nidha waa smart waa noqda objectivekaagu waa inuu yahay specific waa inuu yahay measurable waa inuu yahay attainable waa inuu yahay waa inuu yahay realistic ama relevant waa inuu yahay time bound oo xilli iyo waqtigiisii kuwa horeyn usoo sheegnay. Objectives to study different data collection methods can be employed. Marka dependent iyadoo ku xidhan type of variable nooca variable-ka iyo objective-ka study-gaaga ama aad u isticmaalayso xog ururintaada different data collection methods noocyo kala duwan oo xorina can be employed ayaa la hawlgelinaya. Data collection methods ayaan halkan ku eegaynaa. Data collection methodskuna waxaa jira method wax la yidhahdo iyo instrument wax la yidhahdo. Methodku waa habka ballaaran, instrumentku waa qalabka iyo toolka la isticmaalayo. Marka data collection method iyo data collection tool way kala duwan yihiin laakiin labaduba technique bay isku noqonayaan. Data collection technique bay isku noqonayaan. Methodkuna waa hanaankii habkii la mariyay, toolkuna waa waxaad isticmaalaysay. Tusaale survey baad doonaysaa inaad qaado xog soo ururiso, surveyga cross sectional surveyga aad qaadayso methodka aad isticmaalaysaa waa survey, toolka aad isticmaalaysana wuxuu noqonayaa ama interview, schedule ama checklist ama guide baad isticmaalaysaa ama questionnaire baad isticmaalaysaa. Toolku kuwaas noqonaya, methodkuna surveygu noqonaya. Interviewgu laftiisu wuxuu ku jiraa methodku ka mid yahay, laakiin interview haddaad method ahaan u isticmaasho waxaad u isticmaali kartaa toolkii interview guide baa tool ahaan loo isticmaala. Marka toolkii methodku kala duwan yahay. Marka data collection techniques waa methodskii tools labadii soo gelayaaba waa wax kasta ood xog kusoo ururinayso marka xogta ciddii uga baahnayd baad kusoo ururinaysa. Haddaad dad uga baahantay iyo haddaad deegaan uga baahan tahay adigoo mar walba u eegaya objectiveka study-gaaga ama variableska uu ka kooban yahay. Marka mar kasta waxaa la doonaya in xogtaadu ay si nidaamsan habaysan oo systematic way ayaad usoo ururinaysaa xogtaada oo si cilmiyeysan raaci. Laakiin haddaad si unsystematic aad u marto ama hab aan nidaamsaneyn aad u marto waxay keenaysaa in xogtaadu xidhowto error badan oo kasoo baxo, khalkhal badan oo ku yimaado, su-aalo fara badan oo kugu jiray chapter 1 oo aad ka jawaabi lahayd, research questionska aad ka jawaabi lahayd, answerkii findingska aad ku samayn lahayd, chapterka afraad aad ku samayn lahayd, aad jawaabta keeni lahayd ayaa adkaanaysa. Marka data collection methodsku aad bay muhiim u yihiin, waa inaad marka hore ka taxadartaa. Taasna waxay ku xidhan tahay qaabka ama designka ay study-gaagu ugu yaalo. Marka data collection techniquesku allow-aas inaga waxay noo oggolaanayaan to systematically collect inaynu si habaysan usoo ururino data about our objects of study. Datadaas ku saabsan waxa aynu baranayno, walxaha aynu wax ka baranayno. Walxaynu wax ka baranayna ama dad baynu wax ka ogaanaynaa, ma objects walxaynu wax ka ogaanaynaa ama phenomena mise deegaankaynu wax ka ogaanaynaa. Meesha doontaba ka ogowo halkaad xogta kusoo ururinayso iyo ku oggolaanaya inaad si systematically ama habaysan aad uga soo gurto datada. About waxaan ku saabsan yahay data collection techniquesku the setting in which they occur inaad dejiso ama aad nidaamiso qaabka ay u dhacayaan, inaad sadgarayso dejiso which they occur nidaamka iyo qaabka u dhacayaan. In the collection of data marka xogta lasoo ururinayno we have to be systematic waa inaan noqonaa wixii noqda wax habaysan. If data haddii xogta are collected loo soo ururiyo haphazardly si aan order iyo plan iyo qorshe iyo nidaam lahayn it will be difficult waxaa adkaan doonta to answer inaynu ka jawaabno our research questionskii chapterka koobaad marka researchka la qorayo ku jira in a conclusive way hab aad soo gabagabaysay oo si fiican oo qurux badan inaad uga jawaabto ayaa adkaanaysa. Marka mar kasta oo collection methodka uu kaa xumaado, collection methodka uu kaa noqday mid aan order iyo nidaam lahayn waxay keenaysaa in hadhowto aad ka jawaab weydo research questionska. Haddaba techniqueska iyo nidaamyada iyo hababka la marayo la doonayo in xog lasoo ururiyo ee la raaco way fara badan yihiin. Qaar yar oo kooban baynu xaggan ku sheegi doonaa. Marka various collection techniqueska la isticmaalo way fara badan yihiin laakiin in yar baan kasoo qaadanayna. Inta aan kasoo qaadanayno number 1 waxaanu siinaynaa observation indhaindhayn
number 2 waxaan siinaa interview oo ah wareysi qofka in si toos ah loo wareysto. Number 3 waxaa ku jira face to face and telephone interviews. Face to face iyo telephone interviews waxay ku jiraan interviewgun bay kamid yihiin oo interviewgii isagu waa method imika, laakiin face to face and telephone interviews iyo waxay noqonayaan toolkii bay noqonayaan. Federais qofkii inaad hor fadhiisato oo si toos ah adigu hor fadhiya aad wax weydiiso waxay keenaysaa in su-aalaha qofka aad weydiinayso qofkii adiguna aad xiisayso isaguna uu xiiseeyo, qofkii haddii su-aalaha qaarkood si fiican kaaga jawaabo aad ku celiso, haddii error uu qalad fahmo aad saxdo. face to face ku aad buu muhiim yahay, inta badan waa accurate baa la yidhahdaa, waa nooc hababka loo ururiyo xogta qofka ugu muhiimsan baa la yidhahdaa, laakiin muxuu keenayaa time consuming, waqti badan buu kaa cunaya face to face ku. haddii qofkii face to face aad weydana waxaad ku wareysanaysaa waxa loo yaqaano telephone interviews oo waxaa haduu interview khuseeyo ama interview gear baad isticmaalaysaa. marka waa toolka interview wuxuu noqonayaa isagu si caadi wuxuu noqonayaa waa method. ka ugu sarreeyana anaga sheegnay oo observation bay nidhi, observationkuna waa indhaindhayn. indhaindhayntu waxa weeyaan in si guud aad dusha uga eegto oo wixii deetana adiga eegaya adiga qiimeynaya, laakiin adiga waad qoranaysaa tusaale ahaan dabeecadda dadka kala doonaysa inaad wax ka ogaato, class baad doonaysaa inaad eegto ardayda, waxaad doonaysaa ardayda muuqaalkooda sida wax u baran joogooda baad doonaysaa inaad eegto, dadka waxa ma weydiinaysa adun baa eegaya, ishaad ka eegaysaa markaa wixii waad note garanaysaa. inta badan waxa la yidhahdaa waa buur baa la yidhahdaa in observationku marka kuwa kale loo eego. interviewguna waa naga sheegnay oo nidhi inuu yahay kaa qofkii la wareysanayo, wareysi laga qaadayo. labadan qaybood interviewgu bay kamid yihiin. questionnaire-ku isaguna waa questionnaire-ki waa kii qaabka written-ka ahaa su-aalaha ka koobnaa, marka isagu survey-ga ayuu soo gelayaa. survey-ga method buu noqonaya halkeena uma jiro, marka inta badan isagu waa tool questionnaire-ku. questionnaire-ka si fiican baa isla garanaa, waa kan su-aalano leh open end questions iyo closed end questions iyo su-aalo furan oo caadi oo subjective oo laga shaqeynayo iyo su-aalo objective oo circling ama selecting ah meel la dooranayo ayuu leeyahay ka kooban yahay. sidoo kale techniques-ka waxaa kamid ah using available information, xog hore oo la helaya inaad isticmaasho. literature review kale isticmaalaysaa, xog hore stored information hore oo cidi hore ay diyaarisay baad isticmaalaysaa, laakiin xogtaa hore waxaa loo isticmaalaa literature review guide wax la yidhahdo toolka kan imika waa methodki. sidoo kale waxaa kamid ah hababka xogta lagu ururiyo waxa loo yaqaano focus group discussions ama FGD. focus group discussionsku waxa weeye dadkii group ama koox meel isugu keenaya, kooxdaas markaa wuxuu way falanqeynayaan, discussion bay gelayaan, dood bay gelayaan, dadna waxa ay falanqeeyeen baa la qoraya. marka inta badan tusaale ahaan 5 qof ama 10 qof oo ay meel isugu keenaya, golaa la sameynaya, discussion baa wixii laga gelaya, mawduuc baa la dhex dhigaya, mawduuc baa inta laga doodaya, marka laga doodo wixii kasoo baxay hadhow baa resultkii noqonaya la diiwaangelinaya, kana waxa loo yaqaan FGD. marka dhammaan hababkan waa hababka xogta lagu soo ururiyo. haddaba kan waxaan ku eegaynaa choosing method of data collection, inaad doorato qaabkaad xogta kusoo urursanayso, inaad doorato marka hore qaabka xogta xaggaad ka doonaysaa, qaabkaad u soo ururinaysaa, muddadee baad u maraysaa, waxaas oo dhan waa qaabka iyo nidaamka u dooranayso. marka xogtaada mar walba waxay ku xidhan tahay waddadaad u maraysaa, hadhowto waxa resultka kuusoo baxaya waddo kasta oo sax ka dhigaysa inaad martay noqonaysa. marka tashi badan markaad sameyso study-gaaga markaad dib u eegto, taasi waxay kaa saacidaysaa ama kuu fududaynaysaa marka si fiican indho fiiqan ku eegto, si fiicanna u daraasayso, si cilmiyeysanna u eegto, waxay kaa saacidaysaa inaad si fudud hadhowto aad ku dooran karto methodkii aad wax ku baadhisay. decision makers dadka go'aanada sameeya need information, waxay u baahan xog bay u baahan that's relevant, taasoo xiriir la leh, relation la leh topic-gaaga, timely waqti qayimana leh oo la isla garanayo, accurate saxna ah, and usable lana isticmaali karo. afartaa shardi oo doonaya laga helo waa relevant, timely, accurate and usable. waxyaabaha kale isaguna aadka loo tixgeliyo waxa weeyaan the cost of obtaining qiimaha lagu helayo xogta, processing lagu habeynayo, and analyzing this data is high, wuxuu noqonaya mid sareeya.
markaad relieving eegto timekii accuratekiisu intaaba doonayso inaad muxuu ahaye ka dhigto wax wada sax ah waxay noqonaysaa in cost badan ay u baahan tahay deedna cost badan ama kharash badan uu kaa galo marka costkaas challenge buu kugu noqonayaa xogta challenge ku noqon waxa laga yaabaa in wax sax aad keeni lahayd cost uu kaaga xidhnaa cost hadaad weydana waxyaaba badan kaa khaldamaan the challenge had the challenge is to find ways challenge-ka waa in loo helaa wada iyo dariiq which lead to information taasoo inagu hogaaminaysa xog that's cost effective taasoo ah cost effective costkii noqday mid macquula effective ah in challenge aan kugu noqonayn sidoo kale relevant ah xogtaadii muxuu ahaye la xiriir la leh timely waqtiyeysan and important for immediate use muhiimna ay tahay in si yaro degdega loo isticmaali karo marka waxa la doonaya laga dhigo time cost effective halka costku uu kugu noqonayo costka analyzing and processing and obtaining of datadii uu noqonaya high in xal loo helo challenge some methods pay attention marka methods waa kala duwan qaarba waxbay xooga saarayaan some methods qaar ama hababka qaar ka mid a pay attention to timelines waxay saaraan dareen badan siiyaan timelineska waqtiga and reduction in costs in costkina hoos loo dhigo waqtigana la waafajiyo others pay attention qaar kale oo xog ururinta marka la sameynayo ama researchka la sameynayo waxay diiradda saaraan ama ay dareen siiyaan to accuracy and the strength of the method accuracy-ga saxnaanta and the strength iyo xooganaanta of the method in using scientific approaches methodkii habka adoo isticmaalaya scientific approaches marka qaarna waxay doonayaan dadka inay costka hoos dhigaan timeka laftiisa soo yareeyaan dad qaarna muxuu ahaye methodska qaarkoodna waxay ku dadaalayaan xogtii inay sax noqoto methodka la isticmaalayo uu noqdo mid xoogan marka loo eego xagga scientific ahaan marka haddaynu eegno doonayno xogteena iyo waxaynu research ka qoranayno inuu noqdo mid saxa methodka dambe kan attentionka siinaya accuracy iyo strength of the method iyo scientific approach kaasaynu dooranayna inagu mar walba the statistical data may be classified marka doonayso xog hadaba soo ururisato doonayso xogta sourceska iyo ilahaad ka helayso labaynu kala saaraynaa qaar la yidhahdo waa iska koobantahay intani qaar la primary data iyo secondary data statistical data may be classified waxaa loo kala saari karaa under two categories laba group ama laba kooxood depending on the sources iyadoo ku xiran sourceka iyo isha xogta laga soo helayo ay ku xidhanta mid wuxuu noqonayaa primary data mid wuxuu noqonayaa secondary data primary data sida magaceeda ka muuqato waxaa la yidhahdaa first hand data la yidhahdaa xogta gacanta koobaad cidda cidda studyga wada cidda hawsha ku fogan baa xogta soo ururinaysa tusaale ahaan adigoo kale ayaa doonaya inaad study samayso research qorto adiga xogtii doonay adiga wixii oo dhan cidii laakiin haddii aad information iyo xog u baahan tahay xogtaasi already ay storage ahayd oo soo qaadato kaasi wuxuu noqonayaa waa secondary data waa second hand buu noqonayaa primary data iyo secondary data halkan labaduba inoogu qoran yihiin primary datada sidaanu sheegnay are those data waa xogta which are collected by the investigator himself soo ururiya cidda wax baaraysa source for the purpose taasoo ujeedada specific inquiry or study isagoo doonaya inquiry information specific u doonaya inuu helo ama studygiisa isaga gaarka oo ah cayiman ayuu doonaya inuu helo xog such dataduna are original in character dabiici ahaan waa mid original ah ama waa mid asal ah and are mostly generated inta badan waxaa bilaaba waxaa laga generate gareeya ama laga sameeyaa by surveyska conducted by surveyga ama xog ururinta conducted by ay soo gudbiyaan individuals dadka shakhsiyaadka qofka ah oo research institutions ama institutionska iyo waxaha cilmi baarista marka ay baarayaan cilmi baaris ayay isticmaalaan primary datada halka secondary datada oo soo sheegnay cid kale investigatorka uu kasoo qaadanayo ama qofka researcherka uu kasoo qaadanayo waa weyn marka an investigator use isticmaala data isticmaala kan datada isagu ma leh data isticmaala waa maxay which have already been collected by others taasoo markii horeba cid kale ay soo ururiyeen such datada noocan ah arkole waxaa loogu yeedhaa secondary data leh such datada noocan ah are primary data waxay primary data u tahay for the agents that collected them agency ama hay'adii soo ururisa ayay u tahay primary and becomes secondary waxay noqonaysaa for someone else qof kale who uses this data kaasoo isticmaalaya data for his own purposes ujeedadiisa gaarkaa buu isticmaalay cid baa ururisay xog
shirkad la yidhaahdo tusaale ahaan ammaano oo kale ayaa xog ururisay xogtan anigu u doontay xogtan kasoo qaatay secondary bay noqonaysaa laakiin shirkadda ammaano waxay u noqonaysaa xogtaasi wax noqonaysaa primary. The secondary data can be obtained waxaa laga heli karaa from journals journaalada laga heli karaa reportska laga heli karaa reportada la qoray government publicationska daabacadaha dowladda sameysa laga heli karaa publications of professionals publicationska ama daabacadaha ay sameeyaan dadka professionalka khibradda u leh cilmiga iyo aqoonta ay hayaan and research organizations iyo ururada cilmi baarista ka shaqeeya ayay u noqonaysaa muxuu ahaye ayaa laga helaya meelahaas marka laga helayaa kan loo yaqaano secondary datada primary data laga helaya cidda investigatorka ama researcherka ayaa xogta isagu soo urursanaya